munaasabadan oo ahayd mid si heersara ah ay u soo agaasimeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxgarad, culamaa u diin, madaxda jaaliyadda iyo dhalinyaro. Intii ay socotay munaasabadan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada, waxa ayna bogaadiyeen in madaxweyne Xasan Sheekh mar kale loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyagoo alla ugu baryay inuu u fududeeyo mas'uuliyaddan adag ee loo igmaday. xafladan aan caawa ugu dabaaldegayno insha Allah doorashada Soomaaliya ka dhacday bishan gudaheeda ee lagu doortay labada gudoomiye baarlamaan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga oo ku baahan wanaagaaga iyo hogaamintaadana danaynaya jecelna u soo dhawow insha Allah taala. marka koobaad wixii aan naftayda iyo tiinaba u dardaarmay oo ah alla ka cabsi ayaan u dardaarmaynaa. waxaan u dardaarmaynaa inuu dadkiisa u naxariisto, dalkiisa u tiro, wanaaga uu ka shaqeeyo, waxa uu ummadda u sheegay ee uu ugu sheegay xilligii uu doonayay in la doorto waa la doortay inuu ka rumeeyo insha Allah taala. aad baan ugu faraxsanahay nidaamka cusub ee dhashay. waxaan leenahay madaxweyne waan ku hambalyeynaa. congratulations, tahniya ayaan ku diraynaa. ilaahayna subhanahu wa ta'ala yani kii wadankiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa anfacaha ka dhigo. marka hore waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow iyo qalbi aad ku jecel jaaliyadda Cape Town. aad iyo aad ayaa lagu jecel yahay, wax badanna lagu duceeyay. haddana waxaan ku leenahay marxaban bika, soo dhawow. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ha guulaysto. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa guulaystay, ilaahay ha guuleeyo insha Allah taala. Soomaaliya barwaaqo iyo nabad aan rajaynaynaa. madaxweynaha la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud, laakiin waxaan rajaynaynaa in aad noqotid iftiinkii ummadda Soomaaliyeed ee ay ku hananaysay, ku ducoysanaysay in uu ka baxsho. waxaan aaminsanahay inuu Soomaaliya ka saari karo haddaynu la shaqayno dhibtii 30 sano burburkiina ku dhacay, inuu wax ka qaban karo ayaan aaminsanahay. ducadiina waa loo duceeyay, haddana waanu sii duceynaynaa madaxweynaha in ilaahay tariinkan uu dadku ha raaco, ilaahay uusan ku qalbin, ilaahay meeshii uu ku haminayay ilaahay ku geeyo. waanu duceynaynaa insha Allah. annaguna waxaan ku faraxsanahay in aan Soomaaliya oo doorasho gashay oo qori isku dhiib ku jirta oo aan waliba leenahay wadadii fiicneed bay saartay, ilaahayna soo gaarsiiyo. khayrka Allah waafajiyo, Soomaalina mid wadi kara Allah ka dhigo. marka madaxweynuhu meesha kuma cusba, inuusan dhumi doonin baan filayaa. waxaan rabaa hadduu ilaahay yidhaahdo kolley Soomaalidu wax badan oo ay ka dhul sugaysay ayaa jiray. halbeegii ahaa Soomaaliya oo nabada, dunidana la nabada. kelmaddaas waxaad moodaa inay Soomaalida ifafaalo badan u bixisay, iftiin badan ay u muujisay. madaxweyne Xasan Sheekh waxay la tahay dardar inuu ka dhan yahay. 5 sano ayaa ugu filan, 5 sano ayaa waay aragnimo ugu filan. isagoo aqoon-yahana ayuu haddana 5 sano khibrada qaatay. marka kaliya waxaan leenahay madaxweyne jaaliyadda Soomaaliyeed waxay qaadatay alkudhigaagii ahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah ayay qaadatay. jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa waa heshiis, dowladda South Africana heshiis ay la tahay. madaxweyne waan ballanay, waxaan ku ballannaa adigana waa lagaaga fadhiyaa madaxweyne. waxaan ku ballannaa waxay wax kala maahine ummadda Soomaaliyeed in ay aad iyo aad ugu hamuun qabto maamulkaaga iyo aqoontaada iyo kartidaada iyo waayagnimadaada. Soomaaliya, 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 maasha Allah. sida walaalkiiba hore idinku sheegay guddi qabanqaabada ka mid ahay. kaliya waxaa aniga hadda u soo istaagay inaan idinla wadaago raaligelin ayuu noo soo dhiibay oo wuxuu yidhi iga raali noqdaan jaaliyadda, waan jeclay aan la qaybsado
maadaama daal fara badan uu jiro sidaas laajdigeed ayuu uga soo qaybgeli waayey ha lagu salaamo dhaha madaxweynuhu jaaliyadda marka sidaas inaan ku qanacno. ugu dambeyntii xafladan ayaa noqonaysa midii saddexaad oo ay qabtaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu mar kale noqdo. Cabdulqaadir Axad Dhaqane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Koonfur Afrika.